haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii galka baarista iyo Haruun Macruuf. wadahadallo soo jiitamaya tan iyo bishii Juulaay ee sanadkii hore una dhaxeeyay madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa ugu dambeyn burburay 7 bishan Abriil ee aynu ku jirno. maalintaasi oo wasiirka warfaafinta ee dawladda Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube uu ku dhawaaqay in maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ay diideen doorasho ku salaysan heshiiskii Muqdisho lagu gaaray 17 Sebtembar 2020. heshiiskaasi oo ay ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanku 26 Sebtembar ee isla sanadkaas. markii natiijo la'aan ay ka soo baxday ee maalin walba shuruudo cusub yimaadeen ugu dambeyn xukuumaddu waxay maanta u cadeynaysaa ummadda Soomaaliyeed in labada madaxweyne goboleed ee Puntland iyo Jubbaland aysan rabin inay dalkan ka dhacdo doorasho uu aasaaskeedu yahay 17 Sebtembar iyo isfahamkii 16 Febraayo. waana wax laga xumaado in labada madaxweyne ee Puntland iyo Jubbaland ay noqdeen jid iyo jihadiid aan doorasho ogolayn. hase yeeshee hadalka wasiirka warfaafinta ee ah in wadahadalladu ay burbureen waxaa si weyn u beeniyey labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubbaland oo iyagu dhinacooda sheegay inay weli madashii wadahadalka fadhiyaan kuna eedeeyay dawladda federaalka inay si ula kac ah ugu dhawaaqeen burburka si muddo kordhin loogu sameeyo. madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa isla maalintaasi uu wasiirku hadlay waraysi uu siiyay idaacadda VOA waxa uu ku sheegay sidan: maanta oo dhan waan shiraynay, dhowr maalmood horena waan shiraynay, waxaase caddaatay in qoraalka iyo video ay dawladdu sii daysay uu ahaa wax hore u diyaarsanaa. marka waxaa cad dawladdu inaysan rabin looga wada hadlayo sidii dalka doorasho loo wada dhan yahay loo qaban lahaa. marka nasiib darradaas inay dadka Soomaaliyeed ogaadaan weeye. wasiirka maanta hadlay dabcan wuxuu nala joogay maanta dharka hadda uu ku qaftay codka kii uu watay ma aha oo dadka dhan baa nala joogay. marka wax sii diyaarsanaa oo loogu talagalay in dadka Soomaaliyeed lagu marxabaabiyo ahayd, mas'uuliyadeedana cidda hawshaas qabatay ayaa qaadi doonta dilaha. laakiin wixii rajo ah ee laga qabay inay wadahadalladaasi sii socdaan waxay soo idlaatay 12 Abriil kadib markii kulan uu yeeshay aqalka baarlamaanka lagu meelmariyay qaraar loogu magac daray sharciga gaarka ah ee jihaynta doorashooyinka heer federaal, kaasi oo dib u howlgeliyay guddigii doorashooyinka madaxa bannaanaa kuna amray inay muddo aan ka badnayn 2 sano ku qabtaan doorasho qof iyo cod ah iyo inay muddadaasi sii shaqeeyaan hay-adaha dawladda oo leh awood buuxda. haddaba go'aanka muddo kordhinta hay-adaha fulinta iyo baarlamaanka waxaa ka hor yimid aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland, midowga musharaxiinta iyo inta badan beesha caalamka. haddaba sidee ayaa dalku ku galay xaaladan? maxaa keenay burburka wixii waanwaan ah ee toos u dhex marayay dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada? su-aashaasi waxaan hordhigay mid ka mid ah hogaamiyaashii aasaaska u ahaa wadahadalladii bilowga ahaa ee magaalada Dhuusamareeb, waa madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. waxaa la isku haystaa laba level ama laba arrimood la isku haystaa. dhinaca masiirka iyo aragtida iyo meesha wadanku u socdo iyo nooca dawladnimada aan rabno waa la isku haystaa. waxaa kaloo la isku haystaa dhinaca hoose oo fulinta ama tactical levelkana waxaa la isku haystaa doorashada sidii u fulayso iyo tafaasiisheeda. waxaa la dhahaa muxuu ahay afka qalaad waxa la yiraahdaa the devil is in the details, yani aragtidii guud waa lagu heshiiyay doorashada laakiin detailskii ama tafaasiishii hoose la islama gelin. dhinaca doorashada tafaasiisheeda inkastoo noocii doorashada lagu heshiiyey, inkastoo tirada ergooyinka lagu heshiiyey, inkastoo meelaha ka dhacaysa lagu heshiiyey, qodobo muhiima ayaa waxaa la isku haystaa ama shaki la kala qabaa ama kalsooni darro ka jirta ay ka mid yihiin mataqaanaa security electionka ama electionka ciidamada mataqaanaa waardiyeynaya, ergooyinka sida loo soo xulaayo, cidda soo xulaysa, doorka maamulada ku yeelanayaan, doorka dawladda, odayaasha dhaqanka. odayaasha dhaqanka waxaa ka jira khilaaf weyn oo aan weli loo gudbin. sababta aan loogu gudbin haddii wixii ka horreeyaaba la dhaafilayahay. sida xildhibaanada cusub loogu dhawaaqi doono ama loogu certify garay doono oo yani kala shirkigu wuxuu gaaray maxaa yani la qaban karaa haddii dawladdu xildhibaan ay ku dhawaaqdo
oo guddiga mataqaana dawladdu ku dhawaaqdo ay dhahaan xildhibaankaasa ka soo baxay muxuu ahaa kursi hebel marka tafaasiishaas oo dhinaca doorashada fulinteeda yaa ka jira dhinaca weyn oo masiiriga oo istiraatiijiga waxaa khilaaf weyn ka jira dawladda aqabna nooceeda federalismkii xiriirka maamulka maamulada iyo dawladaha xubnaha ka ah dhamaystirka dastuurka iyo xataa xiriirka shakhsiyaadka wax kasta huna kalsoonida iyo isfahamkay ku xiran yihiin meeshana kalsoonidii baa ka baxday dhinacyada ay siyaasadda isaga soo horjeedaan dowladda federaalka ayaa in muddo ahba ku eedeynaya hoggaanka dowladda inay wiiqeen nidaamkii federaalka kadib markii la farageliyey maamul goboleedyada iyo cidda maamulaysa sida ay sheegeen qodobkaasi markii dambena waxa uu sii kordhiyey kalsooni darrada u dhaxaysay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada sida uu ku doodayo madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare anoo dhuusa mareeb joogo wada hadaladii ku jiro ayay dawladdu waxay ka shaqeynaysay in kursiga laga tuuro waxaa maqlaysaa jubba shaqo ka socota waxaad maqlaysaa abaabula barnaamijya Puntland laga sameeyay qolkiina waa la isla fadhiyaa oo waxa la rabaa in arrin heshiis lagu yahay laga wada hadlo sidee marka qof kula fadhiyo oo subaxii aad isku tumideen oo duhurkii aad isla timideen marka shirka ku kala tagtaan la leeyahay waxaasaa socday waxaasaa socda waxaad maqlaysaa xildhibaano intay ku yimaadeen ku leeyahay walaalow xildhibaana lay ballan qaaday dawladda ay ballan qaaday adigu aan ka nabad galo marka arrimahaas ka muuqda dhaqanka dawladda keenayo aamin darrada adigu xilka ma adiga doortay inaad mar kale isku soo sharaxin mise cadaadis kala jiri bal u bayaami dadka Soomaalida aniga muxuu ahay waaqica dawladdu ay dhulka ay dhigtay ama fayda complete waxa la yiraahdo siday arrinta u maamushay cadaadis soo jireena oo xagga dhaqaalaha xagga amniga xagga dawladnimada xagga abaabulka nabadoonnada iyo dhaqanka xagga xildhibaanada Hirshabelle ka soo jeeda xagga wasiiradii iyo xildhibaanadii Hirshabelle federaalka ku metelay oo dawladdu ay mataqaanaa qaar ay markii horeba ay waxaas ay ku labnaayeen aniga waxa la yiraahdaa nin weyn tag lama yiraahdo wuxuu ku tago ayaa la tusaa aniga dawladdu waxay gaarsiisay heer jidka kaliya ii furan oo yahay inaan intaan muxuu ahay beledweyne tago aan kaar qabiil isticmaalo tolbeelay aan aan colaad furiyo hadii intaan sameyn lahaa markaad aniga doortay inaan ka tago laakiin doorashadaas waa doorasho ku timid ayadoo muxuu ahay albaabadii kale oo dhan dawladdu soo xirtay golaha midowga musharaxiinta oo aan iyaguna lug toos ah ku lahayn wada hadaladii dhuuso mareeb balse soo dhaweeyay waxay eedda burburka wada hadalada dusha ka saareen madaxda dawladda federaalka gaar ahaan madaxweynaha Ridwaan Xirsi Maxamed waa ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore haatanna waxa uu ka mid yahay golaha midowga musharaxiinta waxaan aaminsanahay in dawladda dhexe oo hogaaminaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ilaa waqtiga iyo dooda dheer la galay iyo kulamadii badnaa la qaadanayay intaba in aanay diyaar u ahayn dalka in doorasho ka dhacdo waana arrin aan sababeyn karo oo aan cadeyn karno runtii waxa muuqatay madaxweynuhu wuxuu marar badan ku celiyay anigu waxaan doonayay one man one vote ma one person one vote waxa la yiraahdo hal qof iyo hal cod taasi run ma aha waxa muuqata madaxweynuhu xisbi ma samaysan ilaa haddana xisbi sajilan ma leh waxa kale inuu ognahay shuruucdii iyo qawaaniintii iyo xeerarkii arrinta colaaqada la lahaa dawladdu si fiican ugama shaqeyn baarlamaanka lagama wada ansixin ilaa hadda ma jiro maqaamka magaalada Muqdisho lama cadeyn xeerkii wadaniga qofka inuu muwaadin Soomaaliyeed yahay lama dejin oo lama keenin amniga waxba lagama qaban waynu ognahay sida kale heshiiskii la rabay in dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe mar walba ay wada shaqeeyaan si doorasho loo gaarina lagama shaqeyn bal waxa laga shaqeeyay in la kala tuuro qas iyo dhibaatooyin la abuuro marka taas waxa cadeynaysaa inaan marna madaxweynaha iyo tiimkiisu aanay diyaar u ahayn dalkeena doorasho ka dhacdo ama ha ahaato doorasho qof iyo cod ama ha ahaato doorasho dadban labadaba marka waxaan leeyahay fashalka waxa sabab u ah marka hore waa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa ayaa fashalka sabab u iyagaan rabin dalkeena doorasho ka dhacdo kadib haddaba cadaadiska diblomaasiyadeed ee la saaray dawladda iyo mucaaradka oo ku adkaysanaya inaysan aqoonsanayn muddo kororsiga waxaa mar kale muuqda ismariwaa la mid ah kii siyaasadeed ee taagnaa ka hor burburka wada hadallada maalmihii ugu dambeeyeyna waxaa soo ifbaxayay in midowda Afrika ay doonayaan inay door ka ciyaaraan dhexdhexaadinta dhinacyada Soomaaliya
arrintani waxay soo shaac baxday markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu booqasho aan hore loo sii shaacin ku tegay caasimadda waddanka Democratic Republic of Congo ee Kinshasa. sababtoo ah madaxweynaha waddankaasi Felix Tshisekedi ayaa xilligan ah gudoomiyaha midnimada Afrika. golaha nabadda iyo amniga ee midowga Afrika ayaa toddobaadkii hore cambaareeyay muddo kororsiga, waxayna ku baaqeen in la isugu soo laabto wadahadal aasaaskiisu yahay heshiiskii 17 Sebteembar. golahaasi waxa uu faray gudoomiyaha guddiga midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed in ergey gaar ah uu u diro Soomaaliya si uu dhinacyada ugala hadlo in wadahadalka dib loogu soo laabto iyo inay dib warbixin ugu soo gudbiyaan muddo 4 usbuuc gudahooda. wasiirka warfaafinta ee dawladda Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube waxa uu qayb ahaan soo dhaweeyay qaraarka ka soo baxay golaha ammaanka iyo nabadda ee midowga Afrika, inkastoo uu ku gacan sayray cambaareynta golahaasi ee muddo kororsiga ay sameeyeen aqalka hoose ee baarlamaanka. qodobka koowaad waa soo dhaweynaynaa oo qodobka ku saabsan ergeyga gaarka ah ee Afrika ee nagala shaqeyn doona arrimaha doorashooyinka. sida la wada socotaana madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ka codsaday madaxweynaha midowga Afrika ahna madaxweynaha Jamhuuriyadda Congo Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi inuu African Union ku ay u soo diraan ergey gaar ah oo kala shaqeeya hirgelinta xeerkii jahaynta doorashooyinka ee baarlamaanku soo saaray 12 Abriil ee shacabka Soomaaliyeed siinayay codka iyo matalaadda buuxda ee dimuqraadiga. waan soo dhaweynaynaa in golaha nabadda iyo ammaanku ay yideen soo jeedinta madaxweynaha. laakiin waxaan dareen ka qabnaa laba qodob oo kale. qodobkan ka qabnaa waxa weeye waanu dareen ka muujinaynaa iyo su'aal golaha nabadda iyo ammaanka Afrika ee loo yaqaano PSC Peace and Security Council wuxuu cambaareeyay go'aankii golaha baarlamaanka Soomaaliya ee 12 Abriil ee ku saabsanaa in dalku aado doorasho qof iyo cod ah iyo matalaad shacab oo dhammaystiran. ma jiro urur caalami ah ama urur goboleed oo sharciyan cambaareyn kara go'aan baarlamaan dal madax bannaan. haddaba waa maxay mowqifka mucaaradka ee dhexdhexaadin uu midowga Afrika ka galo xaaladda siyaasadeed iyo ismariwaaga sii socda? waa kan Ridwaan Xirsi Maxamed oo ka mid ah golaha midowga musharaxiinta. annagu horta cid kasta oo runtii Soomaali muxuu ahaa wanaageeda iyo dhexdhexaadkeeda iyo rabta oo diidan ma jiro, laakiin ma ogolin in systemkii iyo nidaamkii lagu heshiiyay mid kale laga daba faruuro. hadda waxa weeye 3 jeer oo 3 tuut oo kala duwan baa ka soo baxay madaxtooyada. mar waxay leeyihiin dawladda Soomaaliya ayaa codsatay sida uu sheegay madaxweynaha Congo iyagu ay maartay African Union soo gasho. madaxweynuhu hadalka isaga Twitterkiisa lagu qoray waxa weeye waan soo dhaweynaa roolka African Union ay ku leeyihiin si doorasho cod iyo qof loo qabto. marka waxaan aaminsanahay inaanayba ahayn arrin la doonayo dhexdhexaad laga rabo ee waxay tahay arrin la doonayo lagu marin habaabiyo bulshada caalamka oo been loogu sheego oo waxaan jira laga dhaadhiciyo. taasina waxaan aaminsanahay inaan shaqeynahayn. marka haddaan si kale u dhigo, wadahadallo ay midowga Afrika garwadeen ka yihiin ama ay fududeynayaan waad ka soo horjeedaan? annagu waxaan aaminsanahay beesha caalamka oo isku dhan oo sidii horeba isugu dhamaayeen inay daadihiyaan arrinta doorashada oo lagu saleynayo heshiiskii 17 Sebteembar ee la isku waafaqay. taas baan anagu ogolahay. ilaa haatan ma cadda sida looga gudbi karo ismariwaaga. dawladda Soomaaliyana ma muujinin inay ka noqonayso muddo kororsiga. dhinaca kalena mucaaradka iyo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo beesha caalamkuba ma muuqato inay aqbalayaan sharcinimada muddo kororsiga. sidoo kale waxaan caddayn inay dhinacyadu isu soo hor fariisanayaan iyaga oo mowqifyadooda kala taagan. dhagaystayaal, waxaan naga xasuusinahay in barnaamijka galka baarista uu la xiriiray wasaaradda warfaafinta iyo madaxtooyada Soomaaliya si aan fursad ugu siino waraysi dheeraad ah. hase yeeshee ilaa haatan aysan noo suurtagelin. marka ugu horreysay taasi dhacdana waanu idiin soo gudbinaynaa. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu mar kale kulmi doono waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.